badan oo uur ku jirta وبعضها سيدي بوده أدياب المدرسة إنها مال كوجت تذكر البيئة وبيجي علو وواركتين marka lii keeno iska fiiriya hore ka cabinaha biyaha webiga waa cabnaa biyaha webiga markaan soo darsano xaaban soo urursanaa waa iska kuleynaa markay biyahaas karaan oo dhulka dhigno oo qaboobaan qaboojiyo ku shubano maamulka iyo ardayda macadka Ilays ee magaalada Beledweyne ayaa maanta daawooyin bilaash ah ugu deeqay dad ku dhaqan mid ka mid ah kaamamka barakacayaasha ee ku yaala duleedka magaalada Beledweyne maamulka iyo ardaydan ayaa ka hadleen muhiimadda ku dhalisay inay deeqdan daawada ay gaarsiiyaan kaamka barakacayaasha awalan alxamdulillaah marka xigta waxaan salaamayaa dhammaan bulshada ku dhaqan kaamkaani runtii maanta haddii aynu nahay bahda dugsiga hoose dhexe luuqadaha iyo caafimaadka Ilays ay soo booqdeen runtii kaamkan markii ugu horeysan imaanay ma ahan marar kale waan imaanay haddana waan jecelnahay insha Allah tacaala ولو أجران كامل مد أو أيضا هرو صوب وقناي رنتي كام كمان هدف كأنه هو إن رنتي كعاونو بالشمر كاسين الله شيء إني كجرت باهي عف ما ضر رنتي أجران شخصيات بدن أو مركز الله حنونسن يعني مثلا أجرنا يا أو مكان كان كسوان رنتي مركز إيمان كام كواحد أرناي حنونة كلا دوان سيدا عذر كتيفوجا أو برتانا كسوه هلني سيدا كلا واحد أرناي المهم مركز قار كميدا أو أيضا نفتح الشوب مايو مسمى تجايو رنتي أيضا إيفالوشن كوسا ميني وان بارتان كوسا ميني كيس بدن أو مركزي إن وحلا قبط أباهنا نصب حي سيدا كله وحنا أرناي دديو خبا أيضا عذر البكتيريا سيدا هدي أهلها الماء أدير ورنتي أيضا مركزي حنو سيدا أنكو أرناي تيسيق حلي هذا أما يعني حنو ذا كله عدجها ورنتي أنت بدن دجها مال إيه ولبا إنفكشن إيه كوضم كأرته أو بكتيريا أدرنا إيه كجرته runtii ayagana qaarna waan dhaqna waan nadiifinay qaarna runtii daawooyinka macnaha nasab ku ahaa mas yani muhiimsan ayaan siinay waxa kale oo arin runtii dad daaweyn ayaga markaas qaba xanuuno sida markaas infection ama nabra qabo ama jug qaar la dhibaataysan oo kurji ku dhac ku soo kacay waa arinay runtii waxaan sameeynay qiimeyn aad u weyn oo ku muhiim ah in yani markaas bulshadani u baahan tahay in loo sameeyo marka runtii marka ugu horeysan ma ahna kan ka imaano marka la imaanayna maanta hadafkeena wuxuu ahaa inaan ka caawino bulshada halkan ku dhaqan markaas inaan soo gaarsino deeq daawo ah oo markaas ay nooga bartay inaan kaamka markaas aan soo gaarsino sida kaamka damanta u imaano kale insha Allah taala waan rajaynaynaa kaamka xiga inaan soo booqan doono si lamid ah insha Allah taala duu leeraado oo ku dhawaay telefishinka Fayf magaciigu waa Nimco Maxamed Cabdillah oo ka socota iskuulka Ilays gaar ahaan caafimaadka maanta waxa soo booqanay kaam kamid ah kaamka Beledweyne kaam kamid ah oo soo booqanay ujeedada u soo aadnaan waxay ahayd inaan ogaano caafimaadkooda iyo waxyaalo badan inaan ku wacyigelino oo imaanay wax badan waa booqano waxaan ku soo aragnay caruur xanuunsan oo kaleeto oo shumaayo la dhaama tag iyo qandha hayso iyo ku burukeeta hayso maamooyin xanuunsan waxyaalo badan waa ku soo aragnay waan u soo wacyigelinay sidii xanuunkooda uu yani xanuunka ugu bogsan karaan oo kaleeto cudurrada waxa looga hortagi karaa in laga fikiro nadaafadda sidoo kale biyaha la iska shubo kaloorin jeermis dile in qashimada kale la iska fogeeyo in meesha oo ilmaha kale laga fikiro kaneecada looga xiro sanyiiri si in ilmaha malaria kale u qabanin oo ku dhawaad telefishinka Fayf ugu horeyn magacaygu waa Silwaxsi Axmed kana mid ah ardayda dhigata iskuulka Ilays goliga gaar ahaan caafimaadka halkan waxa uu maanay meesha maanta u soo booqanay ujeedadeena ahayd inaan caafimaadka mise dadka xanuunsan oo walaalahayn aan wax ula qabano alxamdulillah Ilaahay subhanahu wa ta'ala maad kale oo halkan inay imaano suurtageli anagoo in badan jecleen inay imaano waa imaanay waxyaabo badan waa aragnay caafimaad dari ah dad badan waa la soo kulmay wajiyo badan wala waxyaabo aragnay waxa kamid ahaa dad badan maadaama aan soo aragnay misane ay xanuuno badan kala sheeganayeen sida malaariyada kalooraha oo shubanka iyo burukiitada la waxyaabo badan waa soo aragnay soo koobi kara waxa loo goortii karaa in lagu dadaalo nadaafadda sida hadoo kale malaariyada wixii ka dhalataa iyo tifoog iyo meelaha biyaha wasaqaysan oo kaneecado kale wixii ka dhalatay meelaha biyaha in sidoo kale markii musqusha laga soo baxo kale in saabuun gacmaha lagu dhaqdo oo nadaafadan lagu dadaalo anta wax soo booqanay kaam kamid ah kaamka Beledweyne ku yaalo
ujeedada u soo aadna waxayd inaa caafimaadka iyo waxyaalahaas iyo caafimaadka iyo dhanka nadaafadda inaa aan eegno maamooyin hadda maamo oo waxa ku aragna oo dhehayso adii madax wareer iyo jirka oo liiga dudaayo iyo waxaas camal ka hadlayso xanuuno sheeganayso halkaas maamada xanuun ku soo aragnay iyo maamo dhehayso dhanka indhaha ay xanuunayo sidoo kale mid ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqdan ayaa dhalinyaradan ugu mahad celiyey sida wanaagsan ay ugu soo gurmadeen dhalinyarada maamulka iskoolka Ilays waxayna soo geersiiyeen daawo si aad iyo aad loogu baahnay casri ah ummadii anfacday ayayna soo geersay waa maasan yihiin qaralaasi deeqdan daawada ah oo ay maamulka iyo ardayda iskuulka Ilays ay gaarsiiyeen dadka danta yar ayaa ku soo aadaysa iyadoo dadka danta yar ay wajahayaan xanuuno iyo daawo la'aan isla markaana cudurrada ugu badan ay ka diican yihiin kaamamka Cabdiqani Cali Quality 5 Somali TV kaamka Qaxare Beledweyne